wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii ruuxay magaalada Beirut. intaan barnaamijka bilaabay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka. baarayaasha Lubnaan ayaana ku fogaan sidii loo heli lahaa cidii ka dambeysay qaraxyadii ku habsaday caasimadda Beirut. talaadadii ilaa iyo hadda waxaa la aaminsan yahay in sababtu ay ahayd keed xumo tobanaan tan oo maadada ukramiinta oo loo adeegsado sidoo kale qaraxyada dhalisa, taasi oo lagu keediyay maqsin ku dhex yaala degada. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dawladdu amartay in xabsi guri lagu hayo qaar ka mid ah saraakiishii dekada Beirut. sababta dhabta ah ee ka dambeysay qaraxyadii talaadada ilaa iyo hadda ma cadda, laakiin waxaa la aaminsan yahay in 2750 oo maadada ammonium nitrate oo 6 sano ka hor lagu keediyay bakhaar ku dhex yaalay degada. qaraxyadaasi ayaa si weyn u gulgilay guud ahaan caasimadda Lubnaan ee Beirut, kaasi oo ay ku guuriyoodeen 135 ruux, in ka badan 5,000 ay ku dhaawacmeen. saraakiisha ayaa sheegaya in khasaaraha intaasi ka badan karo maadaama kooxaha gurmadka degdega ah ay weli qodayaan burburka kana raadinayaan dad ku hoos jira dhismayaashii burburay. in ka badan 300,000 oo guri oo ku burburay sida uu sheegay barasaabka magaalada Beirut Marwan Aboudi, isagoo intaasi ku daray hanti lagu qiyaasay 10 bilyan ilaa 15 bilyan lagu waayay qaraxyada. golaha wasiirada Lubnaan ayaa ku dhawaaqay 2 toddobaad oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay caasimadda, isla markaana ammaanka magaalada lagu wareejiyay ciidamada militariga. safaaradda Mareykanka ee Lubnaan ayaa sheegtay in muwaadin Amerikaan ah oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyada, sidoo kale dhowr qof kalena ay ku dhaawacmeen. waxaan tacsi tiiraan leh u direynaa ehelada dadkii ay jeclaayeen ku waayay. waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladda haddii qof kale oo Mareykan uu wax ku noqday qaraxyada, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda Faransa ayaa walaac ka muujiyay sugnaanta cuntada Lubnaan kadib qaraxyadii saameeyay Beirut. madaxweynaha Faransa Emmanuel Macron ayaa maanta oo Khamiis ah la filayaa inuu tagi doono caasimadda Lubnaan ee Beirut. ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in waddankiisu uu ballan qaaday dhaqaale dhan 1.4 milyan oo dollar oo lagu caawinayo dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Lubnaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aaminsan in qaraxyada Beirut ay ahaayeen weerar si ula kac ah loo sameeyay, laakiin xogayihiisa difaaca ayaa qaba in qaraxyadu ay ahaayeen shil.